muxuu ahaa qodobka ugu dambeeya waxaan rabay inaan kaa weydiiyo maadaama aad sharci yaqaan aad tahay aad lawyer tahay waxaan Somaliland ka jiray 20 sano ugu dambeeyay in la isku qabsado dhulka oo dhulkii ayaa ah dhul maxay ahayd tolay qofka tusaale ahaan uu iibsanayaa ama uu dhisanayaa ama maxay ahayd tolay marka waxaa jirta in la isku qabsado oo mararka qaar ay gaadho maxay ahayd tolay dacwado iyo maxkamado ama mararka qaar ay gaadho dagaal oo kale ayaa jirta oo ku soo noqnoqotay dawladda Somaliland ilaa hadda ay xal toos ay u laaday tusaale ahaan haddaan ku soo yara qaato waxaa jirta anoo kale dhul iibsanaya markaan dhulka iibsado dee waxaan marayaa processkii ijraa'aadkii loogu talagalay baan marayaa waraaqihii waan la soo baxaya Cabdilaahi uu soo dhawow balka marka wax yar maqlaysaa okay good marka waraaqihii waxay ka soo baxayaan xafiiskii loogu talagalay ayay ka soo baxayaan kadib waxa laga yaabaa weeygan ama weeyga ku xiga inuu qof kale u tago isla dhulkii oo kale haddana loo sharciyeeyo haddana waraaqihii oo kale loo sameeyo waad fahantaan fariya macnaha ujeeda ma aragtaa marka warqadii waxa laga yaabaa in hal koobi ay tahay dhulkii inuu hal dhul uu yahay laakiin maxay ahayd toolay labada qof magacyadoodii la kala bedelo marka kana de dhulku isaga iskale kana dhulku isaga marka saasi badan dib ku yimaada muddo dheerna way ka soo jirtay Somaliland maxaad dawladana de waxaas uma maxkamadaha badan ku soo laalaabta saan aragno bal maxaad marka ay kula tahay sidee marka ay dawladdu u samaysan lahayd database hadu tusaalahaan dhulka haduu qof iibsaday haduu qof kale yiraahdo ana iska lahaw kale ama de waraaqihii igu sameeya maxaa loo oran laayay dhulkan waa la iibsado hebel baa iibsado waqtiga iibsaday marka database ama record noocaas oo dib loogu laabto malaha ayaan qabaasaan hadda arko way qof walba waraaqihii uu wataa hal qofna waa laga yaabo inuu sameeyay ama xafiis kaliya way sameeyay sida aragtay arrinka horta dhulku waxa weeyaan dee dhibaato badan baa ka taagan oo waxa weeyaan dilal baa ka dhaca qoryaal la soo qaataa waxa ka mid tahay rabshadaha ugu badan ee maxay ahayd amni darrada sababa maxay ahayd dhinaca Somaliland taasuna waxa weeyaan horta waa koow waxa aasaas waa horta dadkii oo waxa weeyaan intaan horta sharciga la gaarin qofku waa inuu de ummadu qiyam iyo waxay leeyihiin akhlaaq iyo waxa weeyaan amaana ayay lahaayeen oo de qofku waa inaan waxaan xaq u lahayn maxay ahayd aanu qaadan xukunku ugu dhaca waxa weeyaan maxkamadeed oo waxa weey waxaan xaq u lahayn lagu siiyana de waxa weeyaan waa dulmi ayay tahay diiniyana waa xaraan nabiguna calayhi salaatu wasalaam markuu hadlayay arrintaa wuxuu yiri waxa weeyaan anigu buu labada qof ii yimaada waxaan eegayaa buu xujadooda marka kii xujadiisu marka isagoo nabi Allah oo wax walba maxay ahayd loo waxyoonayo ayaa haddana si aan maxay ahayd sidii dabiiciga ahayd waayo inagu de macallin buu inaga inoo ahaa marka wuxuu yiri waxaan eegayaa xujadooda marka waxaan u xukumayaa qofka waxa weeyaan xujadiisu in ay caddahay marka ninkii de aan u xukumo buu yiri maxay ahayd xukun aan maxay ahayd waxaan xaq u lahayn qidcad waxa weeyaan gobol naar uu qaadanaya marka horta taas waxa weeyaan waa in qofku dadku ogaadaan oo waxa weeyaan inaanay maxay ahayd xaq inaan xukunka maxkamaddu u xalaalaynayn waxaan xaq u lahayn taas waxa weeyaan waa koow waa in dadku taa la isla fahmo qodobka labaad waxa weeyaan mas'uuliyadda koowaad ee dhulku waxay saaran tahay waxa weeyaan dawladaha hoose oo dhulka iyaga maxay ahayd iyaga bixiya oo ka mas'uula iyaga qorsheeya oo maxay ahayd og waxa weeyaan taana waxa weeyaan in aanay waxay tahay inay in aanay dadku madaxa isu soo gelin ayay tahay waa in marka wax kasta oo qofku xaq qof lagu dulmeeyo marka waxay noqonaysaa horta bal in dhulkii la diiwaan geliyo oo waxa weeyaan deednada imika berigii hore lama awoodo laakiin imika waa la awoodaa waxa la awoodaa in data lagu sameeyo oo computer lagu shubo oo data isku xiran oo xafiis walba taala oo xitaa waxa weeyaan nootayooyinka
ka jira waxa weeyaan dadka dhulka u kala qoraya ay haystaan oo qofka marka lambarka sidaa loo geliyo waxa weeyaan lambarka dhulka iyo halku yaaliyo cabirkiisa marka la geliyo magaca markiiba ay soo boodo dee qofkii lahaa inta jeere la kala iibsaday iyo maxay ahayd horta taas waxay baahan tahay in la sameeyo si aan maxay ahayd aanay dee faylashana la wareegaya faraha badan aanay u maxay ahayd dhicin taas iyaduna waxa weeyaan waa qodobka kale ee waxa weeyaan meesha iyagu yaalla waxa weeyaan qofka wax iibsanaya waa in aanu dee waxa weeyaan wixii iska hubiyo oo dhul baa jira dhaxala oo dadweyne yihiin qof baa jira waxa weeyaan dhul mas'uulka ah oo waxa weeyaan dad mas'uulooga ah laakiin hadduu doono damaaciyaya oo iibinaya waxa jira dhul la isku haysto oo muran ka taagan yahay oo laba qol isku haystaan hadda intaad maxay haytay laga iibiyo oonad iska hubin dabeedna hadhowto waxaad dhex galaysaa waxa qoladii hore qoladii kula murmaysa unbaa dhinaca ku qabsanaysa marka qofka wax iibsanayaana waa inaanu shilinkiisa maxay haytay meel cidla ah maxay haytay aanu ku shubin taasna waxay ka imanaysaa xagga dadka oo lacagtana la wardaayo waxa weeyaan waxa kaloo iyaduna meesha taalla xagga maxkamadaha iyaguna waxa dee looga baahan yahay waxa la yidhaahdo cadaaladdu hadday raagto waa dulmi macallin wax noo dhigi jiraa wuxuu odhan jiray maxay ahayd uu ku celcelin jiray wuxuu odhan jiray cadaaladda oo dub looga dhigo waqtiga aad u baahan tahay waa dulmiga qayb ka mid a marka maxkamaduhu haddii aad u tagto oo waxa weeyaan 2 sano ay ku meeraysiinayaan oo xukunkii aanay ridayn oo waxa weeyaan deedna waxa weeyaan 3 sano kadib ay ku xukumaan 6 sano kadib adigoo waxa weeyaan oo laga yaabo kuwii feelashiistay iyo wadi inay dhinteen oo inamadooda ka dhaxleen ee dulmi waa dulmi wada marka maxkamadii waxa weeyaan in kiisaska la soo afjaro weeyaan oo sida taasuna waxa weeyaan waa qodobka aan ugu dambaysan waxa weeyaan waa fulinta يعني marka qodob waxa jira qof maxkamadu u soo xukuntay oo waxa weeyaan maxay ahayd waxa loo soo dhamaadeen waxa dib loogu soo noqdaa dawladda hoose iyo xukuumaddiiba marka haddana dib loogu soo celiyay waayo maxkamadu waxbay xukuntaa laakiin fulinta waxa leh maxay ahayd waxa weeyaan xukuumadda leh marka xukuumaddii haddii maxkamadii ku xukunto oo iyaduna ay fulin waayaan oo taliye boolisku soo taago ama maxay ahayd isor taago maxay ahayd maareeyihii isor taago ama wasiir isor taago iyaduna waxa waa mushkilad kale marka iyaduna fulintana waa in go'aan laga gaaro oo la yiraahdo wixii maxkamadi soo maxay ahayd soo xukunto waxa weeyaan waa inuu sideeda u fulo isma hortaagi karo madaxweyne isma hortaagi karo waxa weeyaan mar haddii xukun kama dambayso mar hadduu dhacay oo ilaa maxkamadii sare la isla gaaray oo wax waliba soo dhamaadeen waxa loogu hayo maxay ahayd kiiskaagii maxay ahayd fulintii loogu hayo oo lagu fulin waayo dawladda dhexe ku fulin weyda iyaduna waa qalad kale weeyaan halkaana kiisas badan baa lagu hayaa marka waxaan oran lahaa taana laga maxay ahayd laga gudbo intaas maxay ahayd qodobka ku soo gabagabeynaa waan gartay aad u mahadsanyahay kaas wuxuu ahaa cabdilaahi xasan nuur oo ah qariiqaan bartay sharciga sugaan khadka maanta noogu jiray oo marti noo ahaa aad baad u mahadsan tahay qariiqaan كما الله ما سنتي أبونا أبغى ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم مشاهدين تبع تذكر الدعوة